dhacdooyinkii lama ilaawaanka ahaa ee dhacay sanadkii 2024 dhacdada koowaad heshiiskii January 1 Addis Ababa ku dhaxmaray Ethiopia iyo Somaliland ee lagu saxeexay badda Soomaalida laguna siiyay Ethiopiaanka ilaa maantana saameyntiisu taagan tahay isaga oo wajiye kala duwan leh. dhacdada labaad Siciid Cabdilaahi Dani madaxweynaha Puntland ayaa ku guuleystay markii labaad doorashadiisii baarlamaaniga ahayd ee aanay shacabku dooran balse ay baarlamaanku mar labaad u doorteen. xeebta foolka maroodiga ama Ivory Coast waxay markii saddexaad ku guuleysatay koobkii qaramada qaaradda Afrika oo lagu qabtay isla magaalada dalka ku taala ee Abidjan. madaxweynihii Iran ee Ibrahim Raisi iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda ee Amir Hussein Abdullahian oo ku geeriyooday shil diyaaradeed kadib markii ay ka soo laabteen waddanka Iran jaarka yihiin ee Azerbaijan. dhacdada afraad dilkii hogaamiyihii garabka siyaasadda ee kooxda Hamas ee gantaalka lagula eegtay magaalada Tehran. isla dilkii kale ee lagu dilay hogaamiyihii cuslaa ee Yahya Sinwar magaalada Qasa isagoo dagaalka ku jira. dhacdada lixaad isla dilkii hogaamiyihii ama xogayihii guud ee kooxda Hezbollah Hassan Nasrallah. dhacdada toddobaad kooxda ka dhisan waddanka Spain ee Real Madrid ayaa ku guuleysatay markii 15aad koobka horyaalka kooxaha Yurub ee Champions League. dhacdada sideedaad isla Spain waxay qaaday sanadkan koobkii qaramada Yurub ee lagu qabtay waddanka Jarmalka. waxa Ingiriiska uga dhaaratay markii ugu horeysay inuu qaado koobkan qaramada ee qaaradda Yurub. dhacdada sagaalaad waxaa xilka laga tuuray duqdii muddada dheer ka talinaysay waddanka Bangladesh ee Sheekh Hasiina kadib kacdoon iyo mudaharaadyo ka dhashay tadbursi ay sameeyeen kooxdii hormuudka ay u ahayd Sheekh Hasiina. dhacdada tobnaad Hezbollah iyo Israel ayaa galay dagaal foolka fool ah kadib 18 sannadood oo aanay wax dagaal gelin ama dhaxmarin. dhacdada 11aad xisbiga dalka Koonfur Afrika ANC ayaa waayay codadkii ugu badnaa ee aqlabiyadda ahaa muddo 30 sannadood ah kadib markii uu ku sigtay in xukunka laga riixdo. qodobka 12aad Joe Biden madaxweynihii 46aad ee Mareykanka ayaa tartanka ka hadhay kadib markii lagaga adkaaday dood uu la galay madaxweynaha hogaamiya xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump. isla sanadkan dhexdiisa Trump wuxuu ka badbaaday 2 jeer oo la doonayay in la dilo. isla sanadkan gudihiisana waxa uu ku guuleystay mar labaad hogaanka dalka Mareykanka. qodobka 13aad Kamala Harris ayaa noqotay musharaxa xisbiga dimuqraadiga kadib markii uu baneeyay Joe Biden waxayna noqotay gabadhii labaad ee u tartanta madaxnimada dalka Mareykanka. mudaharaadyo rabshado wata ayaa gilgilay waddanka Kenya kadib markii dadku ay diideen cashuuro dheeraad ah oo lagu soo rogay in ay bixiyaan taasoo sababtay inuu madaxweynaha Kenya William Ruto wada daadiyo kulihiisii wasiirada. dhacdada 17aad xisbiga Conservative-ka ee dalka Ingiriiska ayaa lumiyay xukunkii dalka ee uu muddada dheer hayay kadib markii doorasho dhul gariir lagu sheegay oo ka dhacday dalkaasi uu ku guuleystay xisbiga Liberaalku. dhacdada 18aad Bashar al-Assad oo dalka Suuriya xukumayay 24 sannadood ee u dambeeyay ayaa muddo 12 maalmood lagaga tuuray xilka waxaana halkaa ku soo gabagaboobay muddo dhowr iyo 50 sannadood ah oo calaawiyiintu ay xukumayeen dadka Suuriya ee Sunniga ah. dhacdada 19aad fadeexadii iyo fashilkii ugu weyneed waxaa la kulantay shirkadda diyaaradaha soo saarta ee Boeing kadib markii ay diyaaradaheegu la kulmeen ruxankii iyo ciladihii ugu badnaa ee soo food saaray sanadkan. diyaarado badan oo iyadoo ay leedahay oo kuwii daafaha dunida u kala gudbayay ay soo daateen dad badanina ay ku geeriyoodeen. xisbigii 58 sannadood soo maamulayay dalka Botswana ee PDP ayaa waayay xukunka markii lagaga adkaaday doorasho waddanka ka dhacday. kooxda Xuutiyiinta ee ka taliya dalka Yemen ayaa laabay weeraradii ay ku hayeen maraakiibta halkaa maraya marinka Bab al-Mandab ee sahnuuniyadda Israa'iil rarka iyo ganacsiga u geynayay. dhacdada 22aad waddanka Faransiiska ayaa lumiyay oo laga eriyay wadamada galbeedka Afrika ee Chad, Senegal iyo Niger halkaasoo lagu qasbay inuu ciidamadiisa kala baxo. waxa foolxumadii iyo fashilkii ugu weynaa oo soo food saaray dawladda Soomaaliya oo sanadkan gudihiisa fadeexadihii ugu badnaa soo hoysay kadib markii ay dhacday sanadkan gudihiisa in ciidamo Soomaali ah oo ciidamo kale oo Soomaaliya ay cayrsanayaan ama ka cararaya ay isku dhiibeen waddan shisheeye kaasoo ahaa Kenya.